Ganacsatada keenta cuntooyinka qutul daruuriga ayaa sheegay in ganacsiga cuntooyinka qutul daruuriga uu sare u kac ku yimaaday iyagoona ka dhawaajiyay inay culays ku tahay dadka danyarta ah ee ka adeegta iyagoo sidoo kale ganacsatada yaryar ay ayagu hadda soo korayo waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay TV-ga CNA marxalad waxyaabaha qaar hoos u dhac baa ku yimaaday waxyaabaha qaarna sare u kac ku yimaaday sida sokorta oo kale hadda xoogaa way qaalooday oo sare u kac ku yimaaday burka kale iyo saliidda kale saliidaha qaar oo kale hadda marka timirta hadda isbedel weyn hadda kuma yimaadin bil ka hor hadda 1500 camaleed hadda 1700 maraysa laakiin bishan hadda hadee dhamaatay ama laba bil kadib waxa laga yaabaa inay sare u kacdo ramadaanka awgiis marka hadda wax ziyaada hadda oo saas la sheegi karo timirta kuma imaan laakiin midka uu qaalisan kale waa 4500 25 kgskiisa aqaloobay saliid la lahayo Rina oo kale awal waxay ahayd 1300 shilin hadda 1400 shilin noqotay marka qaali xoogaa adiga 100 shilin amal ku zaa'iday sokorta marna way qaaloodaa marna way raqiistaa doolarka kale ay ku xaran tahay inta badan sokorta hadda inta Tanzania maxaa lahaye Uganda iyo Zambia oo kale ka imata marka doolarkaas isbedelka doolarka inta badan ay la socdo sokorta marmarka qaar waxay noqon kartaa xilliyada Ramadaanka oo kale markuu soo dhow yahay hadda laba bil camal anaga xigto xilliyadaas oo kale way qaaloodaa oo hadda markii hal bil ay ka dhimato oo kale u yaraan 5000 camal ay gaaray meesha hadda 4600 ka tahay 5000 camal ay gaaraysaa marka sababta taas ay u badan tahay hadda marka sokorta bismiya kor u kacday mise wax kale oo maaragtay maciishada oo maaragtay kor u kacay jiro sokortaas hadda inta badan ugu badan iyo biyahaas caafiga ama inta badan qaaloobeen labadaas bis hadda u badan inta kale waa sidooda iyo cusbadii ahdaay aan ku soo sheegay oo ayadana sare ku yimaada wallahi hadda caanaha kale sida Brookside oo kale xogaa yar lacag 20 shilin camal ah xogaa macnaha hoos u dhac ku yimaaday oo 20 shilin camal marka waa sidii soo kale hadda caanaha wax isbedel oo ku yimaada isbedel badan oo ku yimaada ayaa ah mid ay la qabsadaan dadka ku nool xaafadda Islii Faadumo Cabdullaahi Maxamed Faadumo Wanaagto TV-ga CNA magaalada Nairobi